سورة المنافقون وهي سورة مدنية. سورة المنافقون وسورة مدنية وقرآن كي سود دقي نبي النصوبان صلى الله عليه وسلم مركو هجرودي ومدينة هجرودي كذب يعني سنة مدعي دبي هاي وحي كاد ليلا منافقين سببتو وقتي ما كل جوغي منافق مجري وقتي ما كل جوغي منافق وحلا مجري dadka waxa weeyaan noortay munaafiq uu soo baxaa markii awood muslim jirto markaas soo baxaa laakiin hadii meesha waxa weeyaan hada kufrigu ba sayid yahay qofkii qalbiga kufrigu jiray kufrigiisu muujisan ila kufriga oo gale marka waqtigii marka gaalada xoog badneed dadka muuminiinta ah dhibaatada iyo cadaadis ku haysta saasarteeda ma jirin qof afkana iimaan ka sheegta qalbigana kufri qarsada hayla kufri xal loo qarina asagaba marka xoog leh sidaas ay ahayd laakiin markii nabiga sallallahu alayhi wasallam madiina yimid oo madiina dadkii joogay dad badan oo kamid ah ay islaameen oo in badan oo waliba arabtii joogtay ee Aws iyo Khasraj ay islaameen badankoodii qaar kamid ahaa waliba dad magac lana ahaa waxa weeyaan waxay arkeen inaysan kula noolaa karin madiino kufrigoodii si marka naftooda iyo maalkooda iyo ehelkooda ay u badbaadsadaan ayay muujisteen islaamnimo ayagoon qalbiga alla ka rumayn oo kufaarka ayagoo kufaar ah ayay carabka ka muujisteen taas marka ilaahi weyna subhanahu wa ta'ala cadow weyn weeye ilaahi weyna marka si weyn u noga waran arintaas taas ilaahi si weyn uga waran cala waa cadow weyn kuwaas cadow weyn weeye markaas ilaahi weyna fadeexadooda cadeeyay sifaaddoodana cadeeyay si looga digtoonaado sababtoo waa cadow daakhili ah ama cadow gudaha ku jira weeye oo makriga iyo sirqoolka iyo dhibka ay u geysanayaan muslimiinta cadowga khaarijiga intuu geysaa waa ka daran saastarteeda ayaa rabbul caalamiin aad u faahfaahiyay sifaadooda si aan loogu dagmin waxa weyn ayaguna ay u gambadaan oo aysan isku dhihin war lin kama hayo ilaahu subhanahu ida jaa'aka markay ku yiraahdaan nabiyow al munaafiquuna urka galada qaalu waxay yiraahdaan nashhadu wa anka maraka'ina innaka adiga la rasuulullah rasuulka ilaahay xaqaha ina tahay wallahu alla ya'lamu wa ogyahay innaka adiga la rasuulkiisa ina tahay wallahu alla yashhadu kamaraka'a innal munaafiqiina urka galada lakadibuna beenalayal inayhiin ittakhadu waxay ka yeesheen aymaanahum mariyalkooda junnatan gashan فسدوا ويجديين عن سبيل الله جدك على ذاتك كجديين إنهم منافقين ساء وحا قماضي ما يعملون وحا أي سمين أيام المخصوص بالذم حمان يبلايين وحا لقو قاريالا نفاقهم ونفاقهم ذلك عملك حمى لقو شيئا ثابت وحو كسقناضي بأنهم بالصواب أنهم أيقا آمنوا ويرميين باللسان عربك ثم كفروا ويقربين حق قلبك فضبع والحري على قلوبهم قلبي الكودة فهم أيضا لا يفقهون حق يبادل كالقرم ميان وإذا رأيتهم منافقين تمكى دركتو تعجبك وحاكويات دلينيسا أجسامهم شركودة قرحدودة يووينكودة ينتجيجيدان وإن يقولوا حتى حطلانا تسمع وادك رارعين لقولهم هذا الكودة فصحابة يفتهن ماذا كأنهم حالا أي لمديهين أيات والكودة دقيسانين خشوب قرية عصر مسندة لتيرتيريي يحسبون وحي ملايين أيام كل صيحة قيلة دمانتيس واقعة مدعضي عليهم دشور كل عضي ملايين أيام هم أيها كريدود العدو عدو كلمة جلو فاحذرهم كدكتونوا نبقى صوبانوا قاتلهم الله لعنت الله كدلوا أما صديبا يؤفكون حقا اللغة الليحية ووحلا يابله إلهي وإنا سبحانه وتعالى وقلنا ذو الرمين منافقين تمركي النبي قوي مهدان صلى الله عليه وسلم إني أفك إيمان وهل جرين أيضا وحويا باطن كي قلبك أيضا صدا صحيني كفر ووجه إلهي وحوه سبحانه إذا جاءك مركي كوي ماذا النبي المنافقون أورك قالبا كوى كفر علولات كقضي قلبك وحوين حقا كديدا قالوا وحي رادان نشهد وحن كم مرقاتك عينا شهادة وحا اللي رادان
aslu shahaada waxaa la idhaahdaa in carabka iyo qalbiga ay iswaafaqaan in carabka iyo qalbigu ay isku waafaqaan wax carabku sheegayo saasaa la idhaha shahaada sidaasaa la sida uu yidhi abu xayaan waxa weeye an yuwaadi'a lisaanu lqalba binutqi waxa weeyaan waxa uu ku hadlaya carabku inuu qalbigu ku waafaqsan yahay shahaada la yidhahda saasaa la yidhahda an yuwaadi'a lisaanu alqalba waa in carabku uu waafaqo qalbiga oo waxa uu ku dhawaaqayo ku waafaqo waxa uu ku dhawaaqayo uu ku waafaqo sidaas ayaa la yidhahda marka waxay leeyihiin waxaan markhaati ka nahay oo qalbigana ka qirannahay carabkana uga dhawaaqaynaa dadka kalena ogeysiinaynaa innaka adiga la rasuululahi rasuulka alle inaad saasay leeyihin waxaan qalbiga ka qirannahay carabkana uga dhawaaqaynaa oon ummadda ogeysiinaynaa oon qayrkeen ogeysiinaynaa waxa weeye in aad rasuulka alle tahay saasay leeyihin qalbigaan ka qirannahay waan aaminsannahay carabkan kaga dhawaaqaynaa dadka kalena waa nagaas markhaatigi maqashiinayna u sheegayna idaa jaa-aka markay kuu yimaadaan almunaafiquuna uurka gaallada qaaluu waxay yidhaahdaan nashhadu waxaan ka markhaati kacaynaa oo qalbigana ka qirannahay carabkana uga dhawaaqaynaa innaka adiga la rasuululahi rasuulka alle inaad tahay wallaahu alle ilaahay wuxuu yidhi subxaana wallaahu alle yaclamu waa og yahay innaka adiga la rasuuluhu rasuulkiisa inaad rasuulkii alle tahay alle waa ogi ayaga la weydiinma munaafiq markhaati loogama baahno oo siduu yidhi cabdiraxmaan naasir sicdi taysiiru kariimi raxmaan fii tafsiiri kalaami lmannaan wuxuu yidhi macnaha waxa weeye munaafiq rasuulka risaaladiisa inuu qiro loogama baahno asaga markhaati cidna ta'yiid kama rabto lafihiisa meelaha geeyo naara ka badbaadi ta'yiid cid ka rabta ma lahu soo ma jeedid allaa og markhaatina isagaa ku filan wallaahu alle yashhadu wuxuu markhaati ka yahay ina almunaafiqiina uurka gaallada lakaadibuuna beenaalayaal inay yihiin hadde waxaa la yaab leh warkaan ay sheegeen ma beena fiiri waxay yidhaahdeen markhaati waxaan ka nahay inaad rasuulka ilaahay ilaahay wuxuu yidhi ilaahay markhaati wuxuu ka yahay inaad been sheegayda haye ma beena waa inaan runta iyo beenta aan kala garanno marka hore waxaa la yidhaha horta run waxaa la yidhaahdaa run waxaa la yidhaha mudaabaqatu lkhabari lilwaaqici waxa weeyaan warka la sheegayaa xaqiiqada jirta waa inuu waafaqo xaqiiqada jirta inuu warka aad sheegaydaa waafaqaa run la yidhahdo beentuna waa taas cagsigeed oo waxa weeyaan cadamulmudaabaqa wey warka aad sheegayda iyo xaqiiqada jirtaa haddaysan iswaafaqsanayn beenaa la yidhahda hadday iswaafaqsan yihiin runa la yidhahdo marka sidqi waxa weeye mudaabaqatu lkhabari lilwaaqici kadibkuna waxa weeyaan cadamu mudaabaqati soo ma jeedi haddaba warka ay sheegeen xaqiiqada ma waafaqsan yihin waxay yidhaahdeen shahaadada waxaan nidhi waa in qalbiga iyo carabku arrinka lagu dhawaaqa isku waafaqsan yihin waxay yidhahdeen waxaan qalbiga ka rumaysanna carabkana uga dhawaaqayna dadka kalena ogaysaynayna inaad rasuulka alle tahay haddaba marka qalbiga arrintaas ma ka rumaysan yihin kama rumaysna beenaalayaal beenaad sheegaydaan way qalbiga kama rumaysnidine beenaad sheegaydaan wey soo ma jeedi ilaa qalbiga kama rumaysna warka ay sheegeen waaqica miyuu waafaqsan yihin ma waafaqsana ilaa waxay yidhahdeen waxaan qalbiga ka rumaysanna oon afka ka sheegayna oo qalbigeenni warka carabkeennu isku waafaqsan yahay inaad rasuulka alle tahay markaasu alla yidhi horta rasuulka alla waaye xagga dhigtaas markhaati munaafiq loogama baahneen amaa idinka beenaad sheegaydaan isma waafaqsan carabkiini qalbigiinuba sax wey ma beenaad sheegaydaanoo carabkiini iyo qalbigiinu isma waafaqsana marka waxa lagu beeninaa waa qalbiga iyo carabka isku waafaqsan arrinta aan sheegayno taasaa lagu beenina waxaa la leeyahy iskuma waafaqsana carabka kaliyaad ka sheegaydaan markaa sawaab wey sawaab wey ilaah wuxuu yihi subxaana wallaahu alle yashhadu markhaati wuxuu ka yahay ina almunaafiqiina uurka gaallada lakaadibuuna beenaalayaal inay sheegayaan oo warka ay sheegayaan aan qalbigu waafaqsanayn ittakhaduu maxay u sheegayaan marka maxaa ku kallifaya inay ku dhawaaqaan tawxiidka maadaama aysan rumaysnayn ilaaha nooga warramay ilaah wuxuu yidhi subxaana ittakhaduu waxay ka yeesheen oo ka samaysteen aymaanahum dhaaryaalkooda junnatan gaashaan
gaashaan ay naftooda ku ilaashadaan maalkooda ku ilaashadaan caruurtooda ku ilaashadaan ilaa hadday gaalnimada qalbiga uga jirta muujiyaan ayaga waa la dilaa waa kufaar caruurta iyo ilmahana waa la qaniimaysana maalkana waa la qaniimaysana marka waa gaashaan ay ku ilaashanayaan hantidooda iyo naftooda waa ugu badbaaday adduunka waa ugu badbaaday ayadoo la og yahay aayado quraan soo degayeen oo nabigu uu og yahay qaar ka mid ah sida qorraxdaas oo kale ila Allah uu sheegay in munaafiqiin qaarna nabigu ma uusan ogay qaar uusan ogayna ku jiro suuratu tawba inoo ma doonta wa min ahli almadinati maradu ala nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum magaalada madiina waxa jooga kuwa hadde waxa weyn ku murxay munaafiqnimada oo gaamuray oo dan ogay laakiin anagu aan naqaan ilaahi anaga og laakiin qaaru yaqiin nabi sallallahu alayhi wasallam kuwaas uu yaqiinay warigiis mara dilin maalkoodana ma qaadan oo wuxuu dhihi jiray nabigu sallallahu alayhi wasallam marka leeyahay aan dilno saxaabada yiraahdaan oo aayado quraan soo degaan oo saxaabada yiraahdaan rasuulka Allah aan dilno cadawgan al soo ma jeedin wuxuu dhihi jiray umadu ku sheekaysamayaan Muhammad asxaabtiisii ulayna ninkan waa gaal saxaabada kamid ma laakiin dadkaas kale maxay u yaqaaneen inuu saxaabada nabiga rumeeyay kamid marka ku sheekaysamayaan arintaas waxay u noqonaysaa dad badan inay xaq ka cararaan marka sumcadda diinka fal xumaanay waxa la leeyahay war muslimiintiiba laynaya maxamed dadkii muslimka ah laynaya uu badbaadina dadkii soo islaamka asaasi uga joogsanay sidaas daraadeeda waxa weeyaan si aan loo tashwiihin islaamka oo xumaan iyo fal xumaan looga fahmin ma dhacay sidaas hal mid kama dilin warigiis nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam qaarna wuu yaqiin qaarna muusan noqon qaar oo magacyadooda u sheegay Xudayfa ibn Yaman hebel kamid madmid magac qaarna hadii Allah la sheegay inuu soo ogay ilaahu subhanahu ittaqadu waxay ka yeesheen oo ka dhigteen aymaanahum dariyalkooda junnatan gaashaan fasaddu laba macnay sadda ku timaada quraanka labada macnaba kula timaada waxa weeyaan sadda oo laazim ah waa jeestay iyo sadda oo muadda oo ah waa jeediyay هذا واجدي هلكان u badan in ku fasiraan mufassiriin fasadu way jeediyeen mafcuulkiisa maxduufa markaas annaas dadkii ay jeediyeen aan sabiilillah jidka alle ka jeediyeen dadkii diin wadadii alle waa ka jeediyeen oo waa maxay dadkooda ma wada gara karaan munaafiqiinta dadkii ay ku dhex jiraan dada waxay moodayaan inay muslimiin yihiin markaas afcaashooda iyo aqwaashooda lagu taasuro lagu dayana ila dadkii ku dhex jiraan masaajidkii ku jiraan waa la tukanaya hatta jihaadka marada nabiga uu raaci jireen sallallahu alayhi wasallam markaas isku dayi jireen inay dilaan way inta la socdo oo dhigi jireen hadii laga faa'iideey karo intaas la socdo ha laga faa'iideeyo ninkan looga raxay umad firjaadkiina wala socdo soo ma jeed marka gabalna meel dhex marka la maraayo waxay isleeyihiin dadku inta niyad jabaha lagu kala carar meesha markaas ay ciidan la jabayeen 300 halkaas kala baxay waxay isleeyihiin inta kale ha yiraahdaan marka ciidan waa la kala tagay meesha yaa lagu gowracay dayu dib waxaan ka shaqeymaya wax aan dhibayn ka shaqeymaya marka dadkii diinta la ka jeediyeen إلى وحده سبحانه فسدوا ويجاديين بدكي عن سبيل الله جدك اللي كجاديين إنهم أيها ساء وحا حماضي ما يعملون ما شيء أيها حماضي كانوا أيها هذين يعملون قوة سمينية المخصوص بالذنب عملهم وحا حماني يعيلقوا قال يلا وعمل كودا ذلك عمل كحمل الشيء ثابت واصل ماضي بأنهم بالسبب أنهم أيها آمنوا وارحميين حلوا للشيء لما قول المفسرين تليه ابن جرير الطبري ابن كثير لبابا waxaad ay marayaan aayadan waxa weeyaan waa xumeeyeen kadib galooday marka hore inta xumeeyeen ay kadib hoosos islaamka uga bixeen markaas ay daahirka ka sheeganayaan ay markan waxay mareen arabkay ka rumeeyeen qalbigana waa ka kufriyeen ذلك arrinkaas ثابت واسقناday بأنهم بسبب أنهم أيقوا آمنوا إليه هميين حقا ومركوا هميين ثم كفروا كذب قالوا بين أيقوا حقي يقان كذب فالضبع والله حري على قلوبهم قلبي الكوضة والله حري حق ضم إنه فهم حيرا قفك أنت حق عباده كذب كس وغطق إلهي وقوع عقابة عقابته وغحن أو إن حقا تفهم وإذا مرضم حق مركوا كوع عباده لغا مضاه والله راحة haddii kale ciqaabta ugu xun waa in ilaahay hanuunka ka xiro خلاص oo dhagaxa iska taagnaad faham ayagu la yaqoon fahmayaan xaq dambe fahmi maayeen xaq iyo baadil ma kala fahmayaan wanaag iyo samaan wanaag iyo xumaan ma kala fahmayaan ilaahu subhanahu wa idha ra'aytum haddad aragto munaafiqiintaas tu'jibuka waxa ku yaab galinaya ajsaamuhum jirarkooda sida uu qurxooyin dhirirka maasha haybada wallahi وإن يقولوا حتى هطلانا
tasmac waad u dheg raaricin liqowlin hadalkooda fasaaxada iyo aftahanimada waxaa is leedahay waxaan ayaga ahaynuna ma jiraanba kaannahum xaalo ay la mid yihiina dhegta u raaricin khushubun qoryahaasoo musanadatu meed lagu tiirtiiriyey dhirirka iyo qaabka iyo fasaaxada iyo balaayada yaxsabuuna waxay u malaynayaan xagga fulanimada kulla sayxatin qaylo kastaba waaqicatun calayh yaxsabuuna waxay u malaynayaan kulla sayxatin qaylo kasta waaqicatan mid dhacday calayhim korkooda ku dhacday saasay u malaynayaan qaylo kastoo yeerta haddii la yidha aayadaa soo degto waxay is leeyihin hala laayimaa soo degto aayadaa soo degtay ma annagaa nala leeyahy waa munaafiqiinati waa shakina dad wax yar tiraado wuxuu ku leey manad inadan baa munaafaqad war munaafiqnimo laga hadli may aad leedahay maxaa yeele waa buka waa jiran yahay wax yar haddii laga hadlo wuxuu is leeyahay adaa lagu danleey waa sida lagu yaqaan munaafiqiinta ilaah wuxuu yidhi subxaana hum ayaga keligooda alcaduwa cadowa cadow kale ma jiro cadow ka weyna ma jiro ayaga cadow ah qaatalahum faxdarhum ka digtoonow nabiga suubanow faxdarhum ka digtoonow qaatalahum allahu ilaahay ha lacnado oo naxariista allah ka fogeeyo annaa sidee baa yu'fakuun xaqa looga leexiya waa wax la yaab leh si xaqa looga leexiya iyagoo nabiga la jooga oo dhegaysanaya oo waxyigii maqlaya sababta ilaah hanuuni waaye allah subxaana wa tacala aclam sala allahu wasalam wbaarak calaa nabiyina maxamed إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى وإذا قيل اللهم مركي الليلة هذا منافقين تعالوا كاليا يستغفر لكم رسول الله رسولك إلهي هينين دنبطاف ضلبه لووا ويجيديان رؤوسهم مدحيالكودا ورأيتم واد أركيسا يسدون حال أي جيسانيان والحال أي جيسانيان هم أيضا مستكبرون أي حق إسكالويهين سواء إسكم مدويه عليهم دشودا استغفرت لهم دنبداف أطلبتيا أم لم تستغفر لهم أما دنبداف أمضل بنا لن يغفر الله لهم الله دنبداف ميو إن الله ألا لا يهدي مهنونيو القوم قوم الفاسقين الضاعة ألا كبحي هم منافقين الذين واقوا يقولون إلى هذا لا تنفقوا هنفقيننا على من اتكركت عند رسول الله رسولك إله يكتيس كسوغا حتى ينفضوا كي ينفضوا سيئي أكلا تغان والحال أي سيرا هدان لله ألا كالجيس ويؤسقنادين خزائن السماوات والأرض إراريالك يدولاليالك قسمده ولكن المنافقين أورك قالبا لا يفقهون قرن ميان وفهم ميان يقولون وغير هدان لئن رجعنا هتان نقلنا إلى المدينة مدينة كلها ليخرجنا وبحنيا الأعز كان شرفت بضان منها مقالة المدينة كبحنا الأذل كان دلق بضان ولله الكريس أي يسقناطي العزة شرفت يأود ولرسوله رسولك سيسقناطي وللمؤمنين مؤمنين تيسقناطي ولكن المنافقين أورك قالبا لا يعلمون أرنت اسمعوك عن كل سوى تفسير سورة المنافقون صفات المنافقين أيها ولي كبدا جرناه لقاء الله الله وقل نوضوه رمي سبحانه وتعالى صفات إليهين منافقين آيات كان waxay ku soo degeen sida adilada saxiixa ay ku sugan tahay Abdullah ibn Ubay ibn Salul oo ra'iisul munaafiqiin ahaayo munaafiqiinta kuwa ugu waaweyn ama kan ugu weyn ba ahaa ama kuwa ugu waaweyn kamid ahaa kaas ayay ku soo degtay aayaadkan oo socda Muhammad ibn Ishaq siirada wuxuu ku wariyay dagaalkii Uhud
markii laga soo laabtay dagaalkii uxudna waxaad ogsoon tihiin sidaan insha allah waana noo imaan doonaahe markii loo baxay oo ciidan ilaa adugu kun gaaraya lagu baxay ayuu hal mar wuxuu la noqday cabdullaahi ibnu ubay ciidan gaaraya ilaa 300 ayuu halkaas ula laabtay iyadoo loo jeedo oo halkaas kala baxay oo ka reebay jihaadka markii la soo laabtay caadadiisan hore waxa uu ahayd markii nabiga sallallahu alayhi wasallam jimcada uu ku fariisto minbarka uu istaaga way istaagi markuu istaago markii uu istaago ayuu wuxuu yiraahdaa hada rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam bayna adhurikum akramakum allah bihi wa azakum fansuruhu wa aziruhu wa asma'u lahu wa ati'u uu yiraahdaa waa kana rasuulka ilaahay baa inuu ku karaameeyay dhexdiinu jooga ilaahay ayaa inuu ku karaameeyay dhexdiinu jooga waxaad yeeshaan u gargaara rasuulkaas alle oo dhexdiina alla keenay iseey xoojiya dhagaysta warkiisa adeeca xukunkiisa intaas u dhigi jiro caado u leeyahay jumcad kasta saas yiraahdaa ra'iisul munaafiqiin maalinkii markii wixii laga soo laabtay oo wixii loo yahay uu sameeyay jumcadii ku xigtay markii nabigu fariisto good markaas intii ku celi uu leeyahay waa rasuulka allah nagu karaameeyay waa in loo gargaara waa in la xoojiya markuu saas u istaagay intuu samadhay markuu saas u istaagay ay muslimiinta markaa ku dhigayeen fariiso cadow ilaahay umatid waxa soo kale inaad ku hadasheen adiga ma gargaar nabi rabo umatid waxa soo kale naga fariiso markuu warkaas ku hadlay uu baxay soo dadka ka tilaabsanay waa bax oo hadlayo leh waxaad moodaa inaan ku hadlay shar waa istaagay ninkaas arintiisan xoojinayay markaas ay farq ugu dhagdhagayaan isagoo lagu bax markuu irida maraya ayaa waxa ka yimid rag ansaar oo albaabka masaajidka uga hor yimid rag ansaarta ayaa uga hor yimid masaajidka iridiis waxay raadaan maxaa kugu dhacay warinta istaagay anoo arintiisa xoojinaya ayaa rag saxaabadiisa ugu dhageen farqa marka waxaad moodaa inaan shar ku hadlayo anigii markaas yiraahdeen hooga kugu dhacay waxa weyn arintaas manaasib ma heeda laabe nabiga u tag dambi dhaafa ku dalba ilaahay ku weydiiyay marka sidaasay marka aayaadkaanu ay ku soo degeen markuu sidaas yiri wallahi inaanan doonayno dambi dhaaf inuu ii weydiiyo wallahi inaanan rabino marka aayaadkan markaasay soo degeen xadiis saxiixa ayayna ku sugan tahay inay aayaadkaanu sababahaas ku soo degeen waxayna ku soo degeen duulaankii la dhihi jiray ghaswatul muraysi ama se ghaswatu bani al-mustaliq waana isku mid muraysi iyo ghaswatu bani mustaliq waa isku mid duulaankaasay ku soo degeen aayaadkan waxa dhacdayna oo sababku uu ahaa laba wiil oo ansaarta iyo muhaajiriinta kala ah oo biyo ka dhaaninayay meel xoga isku dhacay markay xoga isku dhaceen ayaa mid dhawaaqay oo wuxuu yiri yaa lal ansaar ki ansaariga war ansaar yahay war soo baxa wixii ansaara dagaal jireen kii kalena wuxuu yiri war yaa muhaajiriin hey nabiga maqlay salawaatullaahi wasalaamu alayhi markaasuu nabigu wuxuu yiri ما بال دعوة الجاهلية ومحي أرنتي جاهلي قد سؤالدين يا رير هبيلهي ودقن جاهلية دقن جاهلي ويه يا رير هبيلهي ومحي دعوها فإنها ممتنة كتغا وقرن إيه ساسو النبي كويري صلى الله عليه وسلم دقن جاهلي ويه جاهلي وحالي رضا إسلام كتقن كي كوري كفار قال إسلام كوري ayaa yaa reer hebelay dhig jirtay ee ka taga khalaas arintiisaas ku dun Abdullah ibn Ubay warkii gaaray oo la yiri maanta meeshaan inta xoogaa laba dhalinyaro isku dhaceen ayaa sidaas u dhacday markaasuu yiri waqad fa'aluha masaasan yeeleen markaas la waayeen markaasuu wallah la rajacna ila al-madinati la yukhrijanna al-a'az min al-adl ilaahi baan ku dhaartay ee hadii aan madiina ku laabano waxa weeye ninkaygan aziiska ah oo sharafta badan inaan ka saarayo magaalada ninka duliga badan waa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ninka usaas leey
weliba riwaayadaha kale waxay ku dareen inuu yidhi wallaahi maa maalunaa wa maaluhum wallaahi anigu hadda wax kale tusaale uma soo qaadan karo ilaa sida ninkii yidhi yaan ka dhigannahay sammin kalbaka ya'kuluka eygaaga cayili ha ku cune saasay maanta ka dhigan tahay markay yimaadeen ayaan waxa weeyaan soo dhaweynay guryihiinnibaad weliba inta saas ugu qalceliyey qoladii oo waxa weeyaan ansaarta ay la joogay uu yidhi guryihiinniyaad dejideen maalkiinniyaad la qaybsateen markaasay maanta waa kaasaa nagu soo annaga dagaal nala galeen soo ma ah marka haddaad mar hore hantidiinna ka jooji lahaydeen waa naga kala tegi lahayd saasuu ku hadla nimankaas muhaajiriinta waxa weeye meelo kale u guuri lahayd waxaana duldhigay waa idinka biilkaad biilaydaan iyo gacansiintaad gacan siinaydaan saasuu ku hadlo gaalkaasu marka arrintaasu markay dhacday nabiga sala allahu calayh wasalam cumar ibnu khadaab waa loo sheegay waa la ogaaday cumar ibnu lkhadaab ayaa waxa weeye wuxuu yidhi rasuulka allah munaafaqan aan qoorta ka gooyey aniga igu sii daa nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam dahu daa la diri maye waa ninka nabiga yidhi waa ninka dulliga badan fiiri kufrigiisu meeshu ninkaas joogo la diri maayo daawi laa yataxaddathu nnaas ana muxamadan yaqtulu asxaabah dadku ku sheekaysamayaan muxamed saxaabadiisu laaya ilaa dadku waxa weeyaan waxaa loo yaqaan inuu saxaabadii ka mid yahay dadaa u yaqaan ilaa waa tawxiidsana masaajidkii kugula jira waxa weya waa kaasa jihaadkii maruu raaca marka dadaa u yaqaan marka maxay imaanaya sumcad xumo islaamka in loo fahmo oo dad badan islaamka ay uga cararaan yidhahdaan war waa wax dadkaba cunay xataa atbaacdiisii cunaya yuu badbaadi intaas darteed waxa weya si sumcadda iyo loo ilaaliyo islaamka sidaasaa loo daayay shaydaankaas soo ma jeedin weliba xadiidkaas hore waxaa wariyey jaabir ibnu cabdillaahi radia allahu tacaala canhu bukhaari iyo muslim intuba wuu ku sugan yahay bayhaqina dala'il nubuwa wuu ku wariyey xadiid kale oo zayd ibnu arqam u wariyey wuxuu yidhi marka hadalkaasu dhacaya zayd ibnu arqam saxaabigaasoo nin dhallinyaro ahaa joogay meesha oo maqlayey marka inta soo orduu nabiga u sheegay sala allahu calayh wasalam markuu nabigii u sheegay uu cabdullaahina maqlay in nabiga loo sheegay inta soo orduu dhaarki uu xaf kaga siiyey uu yidhi ma dhihin waxna kama jiraan way gu been abuurana markaasaa wuxuu ninkiina waa nin odayaho de magac leh oo beesha waxa weeyaan u weyn oo xataa nabiga sala allahu calayh wasalam markuu imaanayey waxa weeyaan magaalada madiine carabtii deganeeda ows iyo khasraj ayaa taaj u samaynayay taajkii yaaba la tolayay madaxa loo saari lahaa inuu boqor u noqdo ayaga dhan waxa uu islaamnimada u diiday oo islaamka ula colaytamayana wuxuu dareemayey nabiga sala allahu calay wasalam mulkigiisa inuu la wareegay waxa is-iimaanba qalbigiisa u geli diiday taasay ahayd wuxuu dareemayey mulki u soo diyaar ahaa inuu nabigu kala wareegay sala allahu calay wasalam welidaa saas daraaddeeda mulki doonka waxa weeyaan qofka diintiisa sida uu u baabiyo wax u baabi'i kara ma jiro de xadiidka nabigana waa taqaana nabiga sala allahu calayh wasalam inuu yidhi maa di'baani jaa'icaani ursila calaa hanamin biafsada lahaa min xirsi lmar'i cala almaali wa sharafi lidiini laba uubato oo la gaajeeyey oo kadib ari lagu soo daayey arigaas kama baabi'i oga qofka hadduu yidhaahdo maal raadi ama sharaf raadi siday diintiisa u baabi'iyaan qofkan waxa weeyaan mar hadduu is yidhaha mansab raadi ama maal raadi waxa weeyaan diintiisa sida uubatadu ariga u cunto ka daranay u cunaya ninkaas iimaanku saasuu la geli diiday soo ma jeedin marka dhaaruu xakaf kaga siiyo waa dhaartay inuusan waxa weyan hadalkaas dhihin markaasaa xataa wiilkii yaraa oo saxaabiga ahay jaliilka ahaa ayaa waxa weeye waxaa eedeeyey tolki oo la yidhi waa miya saada kuuga adiga maxaa arrintaan ku dhex gelshaan di odagan hadda waxaas xataa ku hadlay ma iska aamusta wiilkii wuxuu yidhi waan tegey meelaan seexday yidhi aanu aad u murugaysan ilaa isagu waa dhaartay mar kaleeta lama hayo waxa weyn tolki way eedaynayaan waxay leeyiin maxaa rasuulka alla waxaa dhici karta inuu wiilku xoogaa ismoodsiiyoon hadalku saas ahayn oon odagu sidaa dhihin ayaa dhici karta khalaas